sagaashameeyadii ayay kacday oo musallaftay waana dhaqaalaha lixaad ee ugu awooda badan dunida oo dhan. dadkeedu waxay kor u dhaafayaan 1 bilyan oo qof waxayna ku hadlaan kumanaan afood iyo lahjadood ah. waa dowlad ka daashay dagaal iyo deganaansho la'aan, balse waa ay ka soo baxday saboolnimadii iyo burburkii dhaqaale si ay u xaqiijiso dhaqaalaha ugu koritaanka badan taariikhda casriga ah. hindiya waxay ku taalaa koonfurta aasiya, waxaana lagu tiriyaa waddanka labaad ee ugu dadka badan halka shiinaha oo keliya uu ka dad badan yahay. sidoo kale waa waddanka 7aad ee ugu bedka weyn caalamka. 1947 ayay xornimada ka qaadatay gumaystihii ingiriiska iyadoo u qaybsantay 2 dowladood. hindiyada ay ku badan yihiin dadka haysta diinta hinduuska iyo bakistaan oo ay ku badan yihiin dadka haysta diinta islaamka. hindiya kuma aysan ladin dhadhanka deganaanshaha 10 sano kadib madax bannaanideedii waxay la kulantay isku dhacyo sokeeye oo aad badan. waxay 3 dagaal oo waaweyn la gashay dariskeeda bakistaan, sidaasoo kale waxay la dagaashay dowladda shiinaha ayaa dagaalkaas ku jabiyey 1962 kadib muran ku saabsan xuduudda oo ka dhashay galbeedka buuraha himilaayo. hindiya waxay horumarkeeda dhaqaale bilowday waqti hore oo ka mid ah xilligii uu xukunka hayay jawaharaal nehru, hase yeeshee waxa uu ahaa horumar cabsi iyo baqdin qaba. waxay dowladdu ku gaabsatay maalgashiga ilaha dhaqaale ee dowladda si loo sameeyo wax soo saar farsamo oo keliya kaasoo ka jawaabaya baahida suuqa gudaha, iyadoo la iska indhatirayo ama la iska hormaamayo tartanka caalamiga ee suuqyada dibadda. waxay ahaayeen siyaasado soo jiray ilaa 1990 qarnigii tegay, kuwaasoo ay gacanta ku hayeen xukuumado kala gedisan oo kala dambeeyey, waxaana saldhig u ahaa raacidda siyaasadda hanti wadaagga oo xidhxidhan, kuwaasoo dhaqaalaha saldhig uga dhigay inuu ku jiro gacanta dowladda iyagoo fududaysanaya horumarinta dhaqaalaha gaarka ah. taasina waa mid ka dhigtay dowladda mid aan la jaanqaadi karayn horumarinta dhinaca dhaqaalaha ee adduunka. dabeecadda raasumaalka shisheeye iyo shirkadaha isaga gudba qaaradaha. sidaas awgeed hindiya waxa ay noqotay mid u xabisan nafteeda islamarkaana dhex badaalanaysa adduunka wax mahaysatada ah. waxaasoo dhan waxaa ka daran, dowladdu waxay la kulmi doontaa 2 dhibaato oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ruxi doona sanadka 1991. labadaas musiibo waxay maroodiga hindiya ka toosin doonaan hordadiisa iyagoon ka takhalusin. musiibada koowaad waxay ahayd mahaartadii weyneed ee dhacday kadib dilkii ra'iisul wasaare rajiv gandhi oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu da'da yaraa taariikhda hindiya, uguna dambeeyey wiilasha ay dhashay ra'iisul wasaare indira gandhi. waxa uu ku dhintay gacanta tamil tigers sanadkii 1991 iyagoo ka argudanaya ka qaybgalkii dagaalka dhana taamilka. geerida rajiv waxa ay sababtay in aanay ku hadhin tafiirtii gandhi oo xukumaysay hindiya laga soo bilaabo ilaa iyo xorriyaddii 1947 qof u qalmana inuu qabto xukunka. musiibada labaad ayaa waxay ahayd isla sanadkii la dilay rajiv. dali waxay ku baraarugtay dhibaatadii ugu weyneed ee dhaqaale ee ay la kulanto taariikhdeeda. waxaa dhammaaday kaydkii dowladda ee lacagta shisheeye isagoo gaadhay wax ka yar $1 bilyan oo dollar. waxaa yimid sixir barar dhaafay 17%, kaasoo ay la kici doonaan badeecadaha iyo adeegyadu qiyaas waaliya. bilayar gudahood 5 qof oo hindi ah 2 ka mid ah waxa ay ku noolaan doonaan xariiqa ka hooseeya saboolnimada. qasnada dowladda kuma ay jirin kayd lacageed oo ku filan wax ka badan 2 toddobaad oo keliya. sidaas darteed dadka hindiya dhammaantood waxa ay isu diyaarinayeen maqlidda warka ku saabsan masallafidda ama kicidda dowladda hindiya. nasiib wanaag waxaa soo bixi doona nin ku habboon xilliga iyo booska. waa manmohan singh. waxaa lagu tiriyaa manmohan singh inuu yahay muhandiska hawsha dib u hagaajinta dhaqaalaha hindiya, taasoo ka toosisay maroodiga hindiya hurdadiisii dheeray. waxa uu ka baxay jaamacadda Oxford. waa nin aaminsan aragtida liberaalka oo ku dhisan xorriyadda iyo sinaanta, islamarkaasna raacsan madhabka hanti-goosadka. waxa uu wasiirka maaliyadda ee xukuumaddiisa u magacaabi doonaa
Narasimha Rao sanadkii 1991 si ay ula curato mucjisada dhaqaalaha ee Hindiya. Manmohan Singh wuxuu sameeyay koox gaar ah oo maamusha lana tacaasha dhibaatada dhaqaalaha, waxaana dhinaciisa taagnaa wasiirkiisa ganacsiga oo ku tababartay jaamacadda Harvard, Rashid Ambram. sidaasoo kale waxaa hareer taagnaa Montag Singh Ahlullah oo qabtay xilka guddoomiyaha guddida wadaxaajoodka iyo qorshaha qaranka. Waa 3 magac oo Hindiya ka rari doona hanti wadaag una rari doona dowlad dhaqaalaheedu xor yahay. Qorshuhu waxa uu ahaa aan furno iridaha dhaqaalaha suuqa xorta ah. Singh waxa uu gartay in dib u soo celinta dhaqaalaha Hindiya uu yahay laga maarmaan aan sina looga leexan karin. Marka la eego fashilka ku dhacay qaybta guud ee dowladda si loo gaaro korinta dhaqaale iyo hoos u dhigidda dhibaatada saboolnimo, waxa uu go'aansaday in uu xoreeyo dhaqaalaha Hindiya, isku furfuro adduunka si loo soo jiito maalgashiga shisheeye. sidaas awgeed waxa uu qaaday dhammaan caqabadihii ganacsiga haystay, wuxuu hoos u dhigay cashuurihii, waxa uu jabiyey gacan ku hayntii xukuumadda ee dhaqaalaha, waxa uu furfuray caqabadihii haystay farsamada, waxa uu ka takhalusay dhammaan wixii dabar ahaa ee saarnaa dhaqaalaha, waxa uu dhiirigeliyey tartanka, waxaanay noqotay tallaabooyin horseeda in maalgashigu uu soo qulqulo Hindiya si dhammaystiran sidii uu qorsheeyey Manmohan Singh. sidaas daraaddeed waxaa firfircooni weyn gashay beeraha, farsamada iyo dhinaca adeegyada. taasina waxa ay keentay in laga takhaluso sicir bararkii isla markaana kobco dhaqaalaha Hindiya 7% muddo 5 sano oo isxigta. Manmohan Singh waxa uu xilka ka tegay 1996, balse qorshihiisii waa sii jiray. Xukuumadihii isxigay ayaa sii joogteeyay siyaasadihiisii iyagoo sii ballaariyay horumarintooda. muddo 10 sano gudahood waxaa hoos u dhacay gacan ku hayntii dhaqaalaha ee dowladda, iyadoo shisheeyaha la siiyey awoodu si buuxda ugu yeelan doono mulkiyad dhammaystiran. sidaa oo kale waxaa gaar laga dhigay shirkado waaweyn oo ay dowladdu leedahay oo ka shaqeeya dhinaca farsamada culus, isgaarsiinta iyo adeegyada boostada. waxayba arrintu gaadhay in gaar laga dhigo shirkadda diyaaradaha ee Hindiya qudheeda. waddankiina waxa uu suurto gashay in uu si weyn u soo jiito shirkadaha waaweyn ee adduunka ka shaqeeya meelo kala duwan oo dhinaca farsamada ah, sida daawada, macdanta iyo tiknoolajiyadda dayax-gacmeedka. jihaynta cusub ee dhaqaalaha Hindiya waxa uu xoogga saaray taageeridda mashaariicda yaryar, sababtoo ah uma baahna dhismahoodu raasamaal weyn. sidoo kale waxay shaqo gelinayaan tiro aad u badan oo muwaadiniin ah. sidaas awgeed waxaa suurto gashay caawinta shirkadaha yaryar, sida in lacag la deymiyo lagana cafiyo cashuuraha, iyadoo ay taasi dheer tahay in la siiyo fududay inta ay ku jiraan hawsha soo dejinta iyo dhufinta, iyadoo sidoo kale suuqgeynta waxyaabaha ay soo saareen suuqyada dibadda. waa siyaasad fariida oo aad u fiican, si dhammaystiranna uga qayb qaadanaysa laba jibaaridda xajmiga wax soo saarka farsamada. Hindiyadii isku dhex yaacsanayd waxa ay noqotay dowlad wax walba soo saarta, laga bilaabo kiimikooyinka, qalabka noocyadiisa kala duwan ilaa laga gaadho qalabka gaadiidka, dhismaha, dhimanta, qalabka gacanta lagu sameeyo iyo xitaa qalabka beeraha. waxaa lagu tiriyaa tiknoolajiyadda macluumaadka iyo barnaamijyeynta ku wajiheeya dhaqaalaha dowladda, iyada oo samaysa sanad walba wax soo saar gaadhaya $50 bilyan. Hindiya dhinaca farsamada meelna kama aanay tegin oo waa ay gashay, waana ku tartamtay ilaa ay gaadhay in ay hub soo saarto, samayso dayax-gacmeed iyo tiknoolajiyadda nukliyeerka.
intaasoo dhan waxaa ka sareeya dhinaca farsamada masraxiyadda ama shaneemada boqortooyada Bollywood. Hindiya waxay uga duwan tahay dowladaha kale dhinaca horumarinta dhaqaalaha in ay u dhaqaaqday horumarinta wax walba si mid ah, xitaa murtida iyo madadaalada, taas oo u xidhnayd Hollywoodka Maraykanka. Balse taas waxaa jiray maroodiga Hindiya welibana si aad uga balbalaaran midda Maraykanka. waxaa la sameeyey astaanta Bollywoodka ee caanka ah, taas oo soo saarta qiyaastii 1,000 filin oo dhaadheer, isla markaana iibisa ku dhowaad 900 milyan oo tigidh oo loogu talagalay in lagu galo filimada Hindiga adduunka oo dhan. Manmohan Singh ayaa mar kale soo laabtay isagoo wata habkiisii uu ku wajahay siyaasadda kadib markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Hindiya sanadihii 2004 ilaa 2008. waxa uu la yimid kooxdiisii dhaqaalaha ee la shaqaysay sagaashameeyadii. wasiirkii hore ee ganacsiga Tashiid Ambram ayuu u dhiibay xilka guddoomiyaha hay'adda qorshaha qaranka. kooxdii laftirkeedii ayaa mar kale soo noqotay si ay u sii wado saamaynta mucjisada. Hindiya waxaa lagu tiriyaa inay tusaale u tahay dowladaha saboolka ee awoodda u yeeshay inay kor u qaadaan wax soo saarkooda qaranka iyo hoos u dhigidda tirada dadka saboolka, iyadoo la adeegsanayo horumarinta beeraha, farsamada iyo dhaqaale gelinta aqoonta. laga soo bilaabo 2003 ilaa 2010, dhaqaalaha Hindiya waxa uu xajistay kobac dhaqaale oo qiyaastiisu tahay 8% sanad walba. xajmiga dhaqaalaha Hindiya waxa uu gaadhay 2.6 trilyan oo dollar. waxaa la filayaa in uu boodo kaalinta afraad ee dhaqaalaha ugu xooga badan adduunka oo dhan horaanta sanadka 2022. Hindiya waxa u suurta gashay in ay malaayiin muwaadiniinteeda ka mid ah ka saarto meel ka hooseysa xariiqa saboolnimada intii u dhaxaysay sanadihii 2005 ilaa 2014. tirada dadka saboolka ee Hindiya ayaa hoos uga dhacday 400 milyan, iyadoo tiradaas gaadhay 270 milyan. midowga shirkadaha wax dhoofiya ee Hindiya ayaa rajo weyn ka qaba in badeecada iyo adeegyada ay dhoofiso Hindiya ay ku kici doonaan qiimo dhan 350 bilyan oo dollar sanadka 2019. Hindiya waxay ahayd waddan ay la degeen dagaallo, burbur dhaqaale iyo musuq. shacabkeeduna waxa uu ahaa shacab kala go'an, diimo, isir iyo afaf kala gedisan. intaas waxaa dheeraa dhibaatooyin aan dhammaad lahayn, balse kala duwanaanshahaas oo dhan waa ay ka guulaysatay markii uu yimid ninkii Hindiya gacanta qabtay kadibna ku duway jidka toosan. sawirka Hindiya sidaas ayuu u eeg yahay maanta, balse wadamo ku abtirsada af iyo luqad keliya sawirkoodu si walba waa uga duwan yahay. caqilkuna tilmaamta ayuu wax ku fahmaa.